السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرف تركوا لوادا كانال كصومالياتو هدي أي تاي markii kugu horeeyay soo boqoto kanaalka subscribe saar gambaleer kana furo fiidiyoogana waxaan ka codsanayaa inaad like saartid si noogu noqoto dhiirigelin waxaan maanta halkan kaga hadli doonaa dalka mawduuciini aan hore uga soo hadalnay ee taariikhda dalka Liberia labadiisii xalqadood tan waa xalqadii saddexaad iminkii haatana aynu guda galno muuqaalkan falaqayno I'm not just tirada dadka dalkan waa ilaa 5 milyan waxaana dadka dhulkan loo qaybiyaa si guud 3 qaybood oo kala dad asal ah oo loogu yimid dhulkan iyo dadka soo hijrooday galbeedka Suudaan iyo dad laga keenay dalka Mareykanka ilaa 28 koox qowmiyadood ayaa ku nool dalkan waxaana ugu ballaaran kooxda qowmiyadeed ee lagu magacaabo Bailey marka laga yimaado luqadaha wadaniga ay ku hadlaan qowmiyadahan Ingiriiska ayaa luqadda rasmiga ee dalkan 85% dadka ku nool waa dadka Kirishtaan waxaana dadka Islaamka ee ku nool dalkan lagu qiyaasaa ilaa 12% inta soo hartayna way aaminsan yihiin diimo dhaqameedyo kala duwan dalkan waa mid dhaqaale ahaan aan aad u horumarsanayn wuxuuna ku jiraa kaalinta 8aad markii la eego dalalka ugu saboolsan caalamka dalkan dhaqaalihiisu kobcayay 70-meeyadii laakiin waxa burburiyay oo ragaadiyay dagaaladii sokeeye ee muddada dheer socday sababtayna in bay burburaan kaabayaasha dhaqaale lacagta dadka dalkan waxaa lagu magacaabaa dollarka Liberia inta badan dadka dalkan waa dad da'yara oo da'dooda dhexdhexaadka ay tahay 18 sano oo xoog da'yara oo la ardabaya shaqo la'aan iyo sicir barar sanadkii 2013 ilaa 2016 waxaa dalkan ka dilaacay virus lagu magacaabo Ebola asaga iyo dalalka dariska la ee Guinea iyo Sierra Leone kaasoo galaaftay nolosha ilaa 11,000 oo ruux oo intooda badan ay ku noolaayeen dalka Liberia 10kii markab ee caalamka hal markab ayaa ka diiwaan gashan dalka Liberia waxayna sidaan u sameeyay si ay uga fogaadaan canshuuraha iyo xeerarka shaqada ee adag dalka Panama oo kaliya ayaana kaga horeeya dhankan dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka aan laga helin hal goob oo lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO waxaana laga helaa beer qaran oo lagu magacaabo Tsavo National Park xayawaanada beertan waxaa ka mid ah jeerta ku dhow inay dabar goodo ee lagu magacaabo Pygmy Hippo jeertan ayaa dadka dalkan waxay u yaqaanaan magaca lo'da biyaha oo waxay inta badan ku dhex nooshahay biyaha waa mahadsantiin